xafladan oo ahayd xaflad si heersare loo soo agaasimay ay soo qabanqaabiyeen xafiiska magaalada Ceelbe ee gobolka Sanaag iyo gudidiisa waxaana lagu taageerayay dhammaan baarlamaanka cusub ee dawladda Puntland Soomaaliya haatan ay dooratay waxaana si gaar ah lagu sii taageerayay gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee maalintii shalay lagu doortay caasimadda dawlad goboleedka Puntland Soomaaliya ee Garowe Cabdixakiin Dabadaareed xafladda ayaa maanta magaalada Ceelbe aan bogaadinayna oo kugu hambalyeynayna inaad noqotid gudoomiyaha baarlamaanka Puntland waad leedahay kartideeda iyo hogaaminteeda adiguna waad isu soo taagtay annaguna waan hubnaa inaad leedahay kartideeda iyo hogaaminteeda intaba xilka ballaaran aad qaaday waana kugu ducaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha kula fududeeyo ha kula garab galo gudoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed iyo baarlamaankiisa hooseeya marka hore waxaan soo jeedinayaa hambaliyo in xilka Ilaahay u fududeeyo talabaad fariin baan u dirayaa oo ah baarlamaankaagu inaanu noqon baarlamaankii xad qoslay tan kale madaxweynaha waxaan ku leenahay baarlamaankaagu ha raadiyo oo reer Puntland ka raadiyo farmaajo kale maamulkeena Puntland oo horeba u jiray haddana lagu jiro isagoo waxaysan markii hore baarlamaankii la xulay markii dambena ra'iisul baarlamaankii la xulay xafladda la soo agaasimay oo aynu dhex fadhino oo loogu talagalay baarlamaanka Puntland marlabaad waxaan u mahadcelinayaa waxaan salaamayaa baarlamaanka Puntland oo cusub baan salaamayaa oo dhan waxaan salaamayaa gudoomiyaha baarlamaanka oo la doortay shalay yoomkii ahaa bisha afarteedii koowaad afarteedii la doortay waan salaamayaa salaanta islaamkaan ku salaamayaa waxaan kaloo leeyahay baarlamaanow waxay la tahay hawlka madaali wali waa hogadii hawsha diinta anigu hadalka badin maayo waxaan isugu nimi inaanu saddex hambaliyo u diro hadaan reer Ceelbe hambaliyada koowaad waxaan u diraynaa guddiga khilaafaadka ee soo saartay baarlamaankan maanta 66ka ee baarlamaankii Puntland ee 2019 2023 oo ah baarlamaankii shanaad inaanu hambaliyo u diro waxaanu kala hambaliyeenaynaa guddoonka sare ay doorteen ee golaha baarlamaanka waxaan u sii hambaliyeenaynaa gudoomiyaha cusub Cabdixakiin Maxamed Axmed oo loo doortay guddoonka baarlamaanka soo dhawo waanu leenahay baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed waxaan leenahay xilka aad qaaday oo ilaah gartay oo lagu xushay oo lagu doortay ilaahay ha kuu guuleeyo hana kuu fududeeyo sida xaq ah oo wanaagsan mid wadanka iyo dalka iyo Soomaaliya iyo diinta iyo sunnaha nabiga haysta baanu rabnaa inaad doorataan oo Soomaaliya u jeeda oo gadaal halka waxaan hambaliyo uga direynaa gudoomiyaha cusub Cabdixakiin Maxamed Axmed oo shalay ku guuleystay gudoomiyaha baarlamaanka waxaan leenahay gudoomiye ma ku hambalyeynaa soo dhawo baan ku leenahay gudoomiye ilaahay ugu muhiimsan sida ka muuganeysay jadwalka inuu yahay nin mudan aad iyo aadna noo farxad geliyay xilka uu qabtay Puntland waxaanu noogu ducaynaynaa xilka in Ilaahay ku asturo waajibka iyo talaabada wanaagsan oo uu qaadayna waa ugu ducaynaynaa wuxuu ku dhashay Ceelbe xuduntiisa ku aasan iskuulka iyo qurunkana uu ka bilaabay gaar ahaan sida uu sheegayo Maxamuud waa nin reer Ceelbe ka tirsan محمود فارح بلا أنت كلامي هنقرن مايو أنا قرآن مركي ودقني أما سكول كدقني أنا عناد بسمين شري مركا وحنولان هاي وانكوهم بليينينا أنا جو عبادة عيسى محمد آدي آد بانكوهم بلييني هدانو هاي وذياش العرب هدانو هاي قلت دي وحانو سدنا انت وصلان ورد ديارة لحيو لحلكي إيو bulshada ku nool degmada Ceelbe
iyo guud ahaanba gobollada puntland soomaaliya ayaa waxay u hanqaltaagaysay dhowaanaha kan doorashooyinka ka jira dowladda puntland soomaaliya haatanna waxay weli dhegta u sii taagayaan sida markaasi loo soo dooran doono oo baarlamaanka u soo dooran doonaan madaxweynaha muddada 5 sano hogaamin doona dowladda puntland soomaaliya waxayna ka codsadeen bulshada reer puntland oo dhan inay hogaamiyo markaasi daacad ay u soo doortaan bulshadooda waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur telefishinka caalamiga Somali News TV degmada Ceelbe gobolka Sanaag